trial balansiga waxaa lagu liis gareeyaa balansyadii managerkeena si lagu hubiyo wixii khaladaada ee ku jira managerkeenii inta aan loo gudbin external userska. Trial balansigu wuxuu ka kooban yahay accountnadii ku xusnaa managerkeena, financial statementka account walba dhinacu raacayo, iyo debit iyo credit kolba kuu noqonayo account kasta in lagu qoro. Waxa ugu horeeya oo aynu soo qaadan doonaa kashka banka inoo yaala oo balansigiisu ahaa 43,550. Accountkan oo ka mid ah statement of financial position oo inoo tegi doonaa markay balance sheetka samayn doono qaybteena balance sheetka dhinaca debit. Trial balansigeenana wuxuu ka galay dhinaca debitka. Waxaynu trial balansigeenii ku liis garayn doonaa oo accountka ku xiga noqon doonaa capitalka oo statement of financial position ah. Credit side-kana inoo yaalay balance ah 50,000 oo aynu geyn doono trial balansigeena dhinaca credit side-ka. Waxa aynu trial balansigeena inagu xigo oo aynu ku liis garayn doonaa accountka managerkeena inoo yaala ee la yiraahdo purchases oo ka mid ah statement of comprehensive income oo debit side-ka inoo yaalay 12,000 oo aynu geyn doono trial balansigeena dhinaca debitka 12,000. Waxaan liis garayn doonaa accountka payable-ka ee inoo yaala managerkeena oo ka mid ah statement of financial position. Credit side-kana inoo yaalo 7,000 ee credit side-ka inoo yaala waxaynu ku liis garayn doonaa trial balansigeena. Trial balansigeena waxaynu ku liis garayn doonaa oo kale accountka saleska oo managerkeena inoo yaala. Salesku wuxuu ka mid yahay statement of comprehensive income oo dhinaca credit side-ka inoo yaalo 12,000 oo balance ah. 12,000 ee balance-ka ee credit-ka inoo yaala waxaynu geyn doonaa listiga trial balansigeena dhinaca credit-ka oo dhigi doono. Waxaynu liis garayn doonaa accountka rent-ka la yiraahdo oo ka mid ah statement of comprehensive income oo debit side-ka inoo yaalo 450. 450ka waxaynu ku liis garayn doonaa oo geyn doonaa trial balansigeena dhinaca debit side-ka oo aynu dhigi doono. Receivablesku wuxuu ka mid yahay accountska statement of financial position oo debit side-ka inoo yaalaan balance ah 6,000. 6,000 ee balance-ka waxaa loo rari doonaa oo la geyn doonaa listiga trial balansiga dhinaca debitka. Accountka ugu dambeeya ee liis garayn doono waa accountka la yiraahdo motor vehicles oo ka mid ah statement of financial position. Debit side-kiisana inoo yaalo balance ah 7,000. 7,000 waxay ku liis garayn doonaa debit side-ka trial balansigeena. Imika waxaan soo liis garaynay accountnadii managerkeena oo gebi ahaanba aynu ku soo liis garaynay trial balansigeena. Waxaa loo baahan yahay in debit side-kana gaar ahaan la iskugu geeyo, credit side-kana gaar ahaan la iskugu geeyo si ay isku leekaadaan. Hadday sax tahay shaqadeena ay soo qabanay, waxaa is leekaan doonaa debit side-keena iyo credit side-keena oo balansyadoodu isku mid noqon doonaan. Hadday khalad ku jiro waxaa kala duwanaan doona balanceska debit side-keena iyo credit side-keena. Haddaba si aynu ogaano wixii khaladaada amba inay sax tahay shaqadeenii waxaynu isku soo geyno labada dhinac marba mid. Debit side-keena waxaa inoo yaalaa 43,550 oo loo geeyey 12,000 oo loo geeyey 450 oo loo geeyey 6,000 oo loo geeyey 7,000 oo noqonaysa 69,000. Credit side-keenana waxaa inoo yaalaa 50,000 oo loo geeyey 7,000 oo loo geeyey 12,000 oo la mid noqonaysa 90,000. Imika halkaa waxaa inooga muuqdaa
in debit-side-keenii markii la isku soo gooyey uu noqday 96,000 credit-side-keeniina marka la isku soo gooyey uu noqday 96,000 ay debit-side-keenii iyo credit-side-keenii isla ekaadeen. taas waxay ku caddaynaysaa in ay xisaabteennii oo dhan sida ay sax ku tahay. aynu qaadi doono stebiska inugu xiga xisaabkeenna. halkaa waxaa ku dhammaaday trial balansigii oo inoo soo xidhmay. waxaynugu xigi doonaa closing inventory casharka inugu xiga oo noqon doona.